oo walwalkii stresski badnaa oo ciyaalkayga fikirka igu hayaan oo dhaqaale darrada iyo jiifnimada iyo ay la qaybsateen ilaahay idinkana waxa idinku baarayaa ilaahay idinku bashaariyo جنة فردوسو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي وين ملول بوجوكتان مرني سلام كدب موقال كني وحود بسعودة موقال كي هوري إن كهذلني جوادي أهيد مريان حسين آذن يكون على ذلك كينيا جاران حافظ إسلي الظروف هيستينا يالك إلى شنطة إلى هذا جاريي دبنا مسلمين تا جارهان سومالي ذا ملول بيجوجان وحكونا قناة إني إسعاويان إسجرب قبطان وحنا إسوتران muddo 10 bari ah ayaad ku bedesheen nolosha qoysdan nolosha qoys ka kooban ilaa 7 qof ilaa 6 qof ayaad muddo 7 bari ah ku bedesheen bacdallahi Allah subhanahu wa ta'ala ayaa bedelay wax walba tiisan idinku soo dhiibay balse adinka ayaa sabab ahaa waxaan Allah subhanahu wa ta'ala uga baryaynaa qof kasta oo wax la baxay $1 haday tahay haday $1 tahay haday $10,000 tahayba in بدل خير قبا الله سبحانه وتعالى قعنتي سو غليو ميزانك حسناتك آخرنا او ugu daro intaas kadib Soomaalidu waxaan ku naqaanaa inay is caawiso waxaana si dhakhsale ku bedesheen noloshii qoyskaasi oo dhan muuqaalkani waxaan idinku soo gudbin doonaa farxadda iyo reynta iyo xaaladda quruxda badan ee ay maanta ku sugan yihiin qoyskaasi Soomaaliyeed iyo lacagta soo gaartay oo uu inala wadaagay walaalkeenkii marka hore muuqaal ka soo duubay oo haddana muuqaal kale soo duubay oo cadadka lacagta aad baxsateen nala wadaagaya ayaan rabaa anigana inaan idin la sii wadaago waxa ajir kule qof kasta oo muuqaalka sii faafiyo waxa ajir kule qofkii muuqaalka soo duubay waxaana ajir kule qof walba oo gacan ka geystay iyo inkii raba inuu wax siiyo balse aanan awoodana u saamixin marka ma raba inaan ku dheeraado muuqaalka balse aan isla daawano ومريم حسين آذن وحنو نكره الله إنه شوقنا مقالة نيروبي عاصمة دلك كينيا جاران حافظ الصومالي ويدقن تنسيل لياهو بيشنا نكوت شروع طبنا طبن كذي أيانو مقال كدوبني تدك الصوماليات بنو بنقريه دي عشور تيدا واحد دقنا الميل كوري كمية دقريها كويا لنيروبي جاران حافظا سليل لياهو ميل شكاها كوابنا ورسنا وكرول كيو كوري دقن تكريس وامس سديتكم $8 ماشي أنت لو $8 دقن تهاي halkaan aan ku karsada halkaan aan ilmay ku siistaa sariirtan waatan halkaan seexiya ciyaalkii waagi ana sagasta joogno gurigeen baa degan dad badan baa la soo xiriiray telefoonkeeda meesha ku qornaa gurigii ay deganeen meel aan ahayn baan maanta ugu nimid madaxtooye yar la moodo meel moodaan ugu nimid la hagaajiyay oo quruxsan oo aad muuqaal ku daawanaysaan ummadda Soomaaliyeed baa u kacday fadhigan aan ku fadhino hadeer fadhi carbeedka la moodo soo fadhi carbeed badee fadhi carbeed Soomaa fadhi carbeed iyada iskale dad fara badan oo Soomaaliyeed baa lacag u soo diray ما شاء الله waad aragtaa labada nolol ay ku jirto waxa waaya muddo 10 bari gudaheeda ayay intaas ku heshay adinka ayaana ku gaarsiiyay Allah subhanahu wa ta'ala ayaana idin soo qasbay oo idin soo diray marka Soomaali meel walba ay joogto way is caawisaa waxna way isu qabataa kaliya dadka waxa kala fogay waa siyaasadda iyo waxyaabahan maartay ku kala dhex jiray mid madowga balse waxa xaqiiqo ah meel kastay joogan inuu jirka isu damqo midka ay farxanuuntana midka kale oo la xanuunaay sida Allah subhanahu wa ta'ala muslimiinta sida yihiin oo inoo sheegay fikirkii badnaa iyo stresskii badnaa way la qaybsadeen waxa gurigii horta waa leega soo raray waxaan soo degay guri oo isla meeshii u dhow 3 qol iyo fadhi ah amse qol 3 qol iyo fadhi waa $450 oo bishii ay tahay awalna waxay ku jirtay jika yar oo wax in lagu karsado loogu talagalay oo 8,000 waa $80 Nairobi waqtiga maciishada waa qaali guryaha waa qaali guri $80 oo intuu leeyahay ayaabis waa jiq waa ciriiri waa tii wadaadka dhahayay kuleel ayaan la fadhin laanahay Nairobi oo ka jiro maantana xaalad akla ay ku jirtaa ma sha Allah alaabaan yani guriga la keenay ee laaga lisii raashin badan la keenay wax walba la keenay way soo boqonayeen wax walba anaga ku garab taagan oo walaasheena tahay stress iyo fikirka badan iska dhaaf ayay dhaheen dal iyo dibad meel kasta la iga soo wacay lacagtii soo gaadhay inta cadadkeedu tahay inaanu idin la wadaagno waxay ku qabsanaysaa inaad idinkuna kala talisaan toos la soo hadashaan ilaahay barkeeyo asagana geelis Allah barkeeyo muslimiinta waan ugu mahadcelinaya maanta waan ugu mahadcelinaya mar iyo mar kastaba ilaahay ha barkeeyo adigu Allah ka qabto marka ilaahay ha barkeeyo hawlooda iyo awlaadooda aan ugu duceynaya mar kasta
waxay muuqaalka ku dartay ay sheegtay inuu jiro nin reer baadiye ah oo geel la joogay oo daawaday muuqaalkeedii yacni adduunka hadda uu hormaray meel walba waxaa taalo maaragtay telefono smartphone ah muuqaalka ayuu daawaday baadiye ayuu joogay geel ayuu la jiray kadibna geel ayuu usoo gaday wuxuu usoo diray lacag $400 ah حتى وديو بادي جوجو أسأل جيل لجرا حتى أنت دبكي أركي بو أسأل أنتو جيل يسوق قضي بو $400 بو شركة دي يسوق دحبجيل كسوق قاطي جيل هه جيل $400 بو أنتو جيل يسقط دبكي مركو أركي يعني وقدن قضي مركاسو جيل يسوق قضي هذه نف كم يذوق سوق قضي مركلا دحبجيل بو يسوق $400 taasi waxay cadeynaysaa sida muslimiinta meel walba ay joogaan iyo Soomaalida gaar ahaan waliba ay isugu damqadaan ma sha Allah kuwa badan oo moogtay ka durugsanaa raba in hadir kugu soo dhawaadaan marka lacagtaada darteed bay kugu soo dhawaanayaan waxaad ka ilaalisaa qof kasta kuwa waliba rag sheegtay baa jiro oo soo hanqaltaagaya waa garanaya kuwa rag sheegtay waxa ma sunuud la ururiyay nin rag oo sharaf ku jirto oo Soomaali buyuraade kulay uma hanqaltaagay kuwa rag sheegtay baa kulay waxaan qaltaagay xogaagaas hadda marka wuxuu rabaa inuu na tuso wixii aad u soo dirteen dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan de qof looma sheegi karo laakiin si guud wixii aad u soo dirteen ka ilaasho insha Allah saaxiib soo dhawaada waxaan rabaa inaad ii sheego lacagtu intay tahay إذا بلاهي ذيك الله بحي قف سووا الله بحي دمشق ولا بحي دي موقت عرولان تاي يا دي عرتو خير حماتي تاي يا دي غوركو عقدي واي تاي يا دي ولول كلا تاي يا دي موقت اسغا قف كسا ميش ولا بحي انو موغدي اسغا قف كسا مرادكيس الله وسهل إلهي هو سهلو كي $1 لا بحي كي $2 لا بحي كي $100 لا بحي كي $1 لا بحي انت بدي إلهي ووغيا إلهي إذن كما قديو قف كسا واحد لا بحي إلهي كوغو اكو اقبلو halkan horta waa milyan waxa weeye tan ka furaan ajirka ka furaan أبغى أسمع تحكينه لعبت وعيش يقول شيء ضد الصوماليين بين داونية ما لعبت كينيا هذا وأقانه كينيان دولار كسواء النقطة أمريكا كابل يقول شيء وكو يلا يصدح يا أفر يا شن يا اللح يا تضبط يا سديد يا سجال يا طبعا هلك صرت هو مليون كو وحاول قطع مليك أسوحه دقما طبعا كن أو دولار هلك سنة halkaasina waa $20,000 $20,000 اللهم صل على محمد halka inta diga haysan 30 ku badiga haysan ila socodee halkan waxa weeye carruurtii baa sheekeynayso oo faraxsan halka ciyaaraysa maalintii hore dansanayd intii cunto cuneen oo caana cabeen oo farxeen oo guri degeen bay saas yeelanayaan idinka ka farxiye rabbaani ka farxiye dhamaantiin qaylada aad maqlaysana waa iyagii waa koow iyo laba koow laba saddex afar shan lix toddoba sideed halkaasi waa 800 oo kun oo lacagta Kenya oo dhiganta maxay de $8,000 imsa adiga haysan idinka xisaabinaya dira socodee كو يلا يا صدح يا أفر يا شن يا لح يا تضبي يا سديد يا سجال يا تور يا خوي تور لبي يا صدح يا تور أفر يا تور شن يا تور لح يا تور تضبي يا تور سديد يا تور سجال يا تور لا تم وجي أنتي دارت تسوقه وقت صاحب يا الجود هلا عقته waxay noqotay ama ay tahay waa 41 waa 40 koob iyo 40 kun iyo 470 iyo $8 haddaan ku celiyo lacagta ay heshay ee gacanteeda ku jirtay idinku aad u soo dirteen yaad kaga farxiseen ilaahay dambigiina iyo waalidkii marka la dhaafay waxaan leeyahay waa koob iyo 40 kun 470 iyo $8 oo walwalkii stresski badnaa oo ciyaalkay fikirka igu hayaan oo dhaqaale darrada iyo jiifumada iyo haysa ay la qaybsateen ilaahay idinkana waxa idinku barayaa ilaahay idinku bashaariyo jirada fardooso qofkaas muraad buu leeyahay muraadkiisa inuu ilaahay u sahlo waxaan Allah subhanahu wa ta'ala uga baryeynaa cid kasta oo gabadhaasi soo caawisay oo murugada iyo diifta iyo dhibaatada ka dulqaaday bacdallahi
in allah subxaana watacaala qof walba wuxuu la baxay bedelkiisii iyo bedelka khayr qababo uu u soo kordhiyo miisaanka xasanaadkana ugu daro adduun iyo aakhirana uu ku faa'iido run ahaantii qof kasta oo wax la baxay oo gabadhaasi waxa lagu caawiyey lagu farxad geliyey qaybka ahaa wuxuu caawiyey muslimiinta dhan waayo dhammaan muslimiinta waxaa ku taagnaa kurbo waxaa ku taagnaa walwal kii waxayey ula baxay kii aan waxba haynin walwal ayaa ku taagnaa waanad ka wada farxiseen sidaad uga wada farxiseenna allah subxaana watacaala ha idinkaga farxiyo ilaahay subxaana watacaala meelo badan ayuu qur-aanka ku sheegay aan la soo koobi karin sadaqadana waxay daweysaa inkee xanuunada marka dad badanna inay ku caafimaadi doonaan ayaan rajeynayaa kurbada aad naga faydeenna allah subxaana watacaala ha idinka faydo sida aad u garab istaagteen gabadhaasina allah subxaana watacaala idinkana ha idin garab istaago muuqaalka intaas ayaan kusoo koobaynaa wassalaamu calaykum